waxay tidhi waxaan ahaa gabadh aad u qurux badan, reerkayaguna wuxuu ahaa mid igu xisaabtama maadaama aan ahaa codadii reerkayaga. Waxaan ku soo barbaaray daryeel aad u wanaagsan. Markii aan qaangaadhay, rag badan oo qaarkood hore aabbahay iiga soo doonteen yaraantaydii iyo kuwo kale oo badan ayaa bilaabay tartan adag iyo dadaal dheer inuu dhex maro aniga dartay. Laakiin anigu maan ahayn mid qiimaysa lacagta iyo quruxda iyo waxa la midka ah. Kaliya waxaan ku hamiyaa in uu i guursado nin aniga i jecel sida uu isagu nafsadiisa u jecel yahay, si la mid ah aabbahay. Oo ay u yimaadeen rag badan oon qaraabo nahay, ayaa mid kasta wuxuu ii ballan qaadaa in uu i siin doono wax kasta oo aan jecelahay. Qaar ayaa ii ballan qaaday inay qasri i dhisi doonaan dahab ah, halka kuwo kalena ii ballan qaadeen in ay i geyn doonaan waddan kasta oo aan jecelahay, halkaasna ay iiga dhisi doonaan guri. Aad ayuu si gaar ah iigula taliyay inaan marna iska dayicin fursadahan qaaliga ah, isaga oo igu booriyay inaan ka aqbalo guurka mid ka mid ah wiilashaas aan qaraabada nahay. Hase ahaatee, waxaan aabbahay ka codsaday in uu ii guuriyo ninka aan guurkiisa anigu raalliga ka ahay. Taasna alxamdulillaah wuu iga aqbalay aabbahay, waanuu iga ballan qaaday